xishood ka badan ee gabadha waxa uu dhaafin karaa xiriirkeeda jaceylka rasmiga ahaa. gabadha marka uu xiriir jaceyl uu soo kulaalay amaba damac jaceyl uu ku beermo isla markaana wiil ay jeclaato way ku adkaan kartaa in jaceylkaasi ay u bandhigato wiilka ay jeceshahay. waxaa suuragal ah in sanado badan jaceylka ay u qabto wiilka ay qariso iyadoo aaminsan in wiilkaasi iyada uu u soo bandhigan karo jaceylka, maadaama cabsi badan oo ku aadan xishoodka iyada hareeyay uu ku kalifayo in jaceylka ay u qabto wiilka ay jeclaatay aysan u bandhiga karin. waxaa taa ay keenaysaa in gabadha xiriirkii jaceylka dhabta ahaa ay qabtay ay uu si rasmi ah ku dhaafo, isla markaana marxaladii jaceylka ee bilowga markii hore iyada u ahayd iyo astaantii gaareed ee wiilka hore ay ku xulatay intaba ay ku weyso, isla markaana xiriiro jaceyl oo kale oo aysan ku qanacsaneen nafsadeeda uu hareeyo. cabsida badan ee gabadha ka soo wajahaysa marxaladaha kaga imaan kara wiilka oo ay ka baqanayso in jawaabo aysan ku qanacsaneen ay kala kulmi karto, waxa ay keenayaan arrimahaasi oo idil oo is urursaday in cabsida gabadha haraysa aaweed in ay la xishooto jaceylkii hayay, waxaayna ay qarinaysaa waqtiyo badan xiriirka jaceylka ay u qabto wiilka ay doonayso mar uun inay u bandhigato. waxay isleedahay oo ay aaminsan tahay wiilkaasi isaga ayaa ku soo raadi doona amaba kuu soo bandhiga doona xiriirka jaceylka, isagu waa warmoog oo kama warqababa in gabadhan ay jeceshahay waqti sanado ku dhow. laakiinse gabadha marka ay ku dadaashay in xiriirkeeda jaceylka ay bandhigato waxa uu keeni karaa in nasiibkii ugu horreeyay ee jaceylkeeda ay haleesho, isla markaana qofkii sida rasmiga ahaa ay u jecleed ay gacanta ku dhigto. balse marka uu sheego calmashadeeda koowaad ee jaceylka qofkii koowaad u noqon lahaa, waxaa taa ay ku dhalinaysaa gabadha in xiriiro jaceyl oo kale oo aysan ku qanacsaneen in lugaha ay la gasho. dhinaca kale gabadha marka ay doonayso in wiilka xiriir jaceyl ay u bandhigato waxay u maraysaa wadiiqooyin sarbeeba. suuragal marka hore si caadi inay u barato laga yaabo wiilka inay aaminsan tahay in xiriirka jaceylka uu fahmi karo, balse gabadha marka wiilka jaceylka ay u bandhigato waxaa arrintaa ay keeni kartaa in gabadhu culeysyada badan ee jaceylka ee ku dahaaran ay ka foqi karaan. maxaa yeelay jawaabaha kaliya wiilka ay kala kulmi karto waa haa iyo maya oo ah jawaabaha ugu fudud ee qofka uu si uun ku aamini karo. laakiinse marka aad qarsato xiriirkaaga jaceylka waxaad noqon kartaa qof cabsida jaceylka in badan u hel ay u noqoto. إذا نبحنا